kulankan oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxa uu dhaxeeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen culimada magaalada Baydhabo ganacsatada magaalada iyagoona ka wada hadlay arrimaha la xiriira gargaarka bini'aadanimo ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ganacsatada iyo culimada ayaa soo gudbiyay warbixin la xiriirta sida uu go'an tahay inay gargaar bini'aadanimo ay gaarsiiyaan dadka abaartu ay saameynta ku yeelatay sanadkan madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa dhageystay warbixinooyin la xiriira abaaraha iyo ganacsatada halka ay wax u marayaan kulanka markuu soo ilaaday waxa warbaahinta la hadlay Sheekh Abdulbaari oo kamid ah culimada magaalada Baydhabo asigoona faahfaahin ka bixiyay kulanka madaxweynaha Koonfur Galbeed ay maanta la qaateen geeka oo maalin sabti bilana roogto 10 iyo 2 oo kala roogto ma habooqanay xarunta madaxtooyada Koonfur Galbeed mayna la kulugnahay qaabilay madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Laftagareen dadka kulumina ma haynay guddi ganacsi iyo culimo asla jaraan mayna ka dareernay dhibaatada dalka ka darasti ama dhibaatada oo hada eed lamba inay ka qarsanayna yaa ka gurmini markii hore oo asix xaqaagni in uu gurmino dareensiino bulshooyinta hada dawladda saas oo kale inay la dareent yaa booqni runtii madaxweynaha sifaylahanin dhawaay eedna arrintan la qaadadi oo ma aray guddo horaada jari guddiga dhowna isaga siin ka hiraana dadkii si alsilan ka gargaaro kor halan ka gargaaro si alsilan ka gurmudo kor halan gurmudoy marka oo arrintaas ka amba qaadana maylana Soomaali meel buroogta geek khaasa dadkii ka kijeedi mandiqada Koonfur Galbeed araw ma in ka baaqana dal idibad meel buroogan in geek gargaar aad iyo aad balaaran la fadiyo dadkii biyo wala baahan oo la dhamaado hayaan baahada la dhamaado hayaan daawada iyo aan baahanyiin karka aan baahanyiin nooc kasta dhibaato dadkii saameeyay xoolaha ka dhamaadeen beerooga inta badan abaarsadeen marka xoolaha naftooda wali roog wal aamayaan ma leeyahay dhibaatooyin jirta dadkii ha barakaceen lamba meelin nolol ku weydii karo hanbahi meel faday marka gurmud degdeg dhiig joojin oo mudaan Soomaali ama Koonfur Galbeed meel al meel roogan dad dibad in la gurmudo oo arrintaas ka faa'iideysado oo ilaahay an ka toobashana wali dhibaato oo jeysani ilaahay naxariisiis oo ka rajayana صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم هل ورسين قرقاره أو ورسين أرزاقه إلا تذكر ضعفده ورئيسا قرقار تامهين إن تنصروا الله ينصركم marka may fadaan inta dadkaasuna gurmuna gargaarna baahada meel almeeli jart oo Soomaaliya dhaxdiye in gurmudkaasi gargaarkaas deersan oo diyaar leena dawladdeena insha Allah diyaar leeta shacab weynkan kullu ma ka baaqana in arintaas la gurmuda magal balaan ganacsi indar garata kullu in arintaas ka qayb qaado dal idibad intaas aan ka baaqana wabillahi tawfiq deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kamid ah sanadkan deegaanadu ay abaarta saameynta ku yeelatay waxaana weli socda gurmad ku aadan sidii dadkaasi gargaar bini'aadanimo loo gaarsin lahaa degmooyinka abaaraha saameynta ku yeelatay ayaa kamid ah degmada Xudur Weejida Elberde oo ka wada tirsan gobolka Bakool Diinsoor Qasax Dheere iyo Bardale oo ayaguna ka tirsan gobolka Bay Cabdirashiid Rashka raadiyaha TV-ga Shabeelle magaalada Baydhabo kulankan oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxa uu dhaxeeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen culimada magaalada Baydhabo ganacsatada magaalada iyagoona ka wada hadlay arrimaha la xiriira gargaarka bini'aadanimo ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ganacsatada iyo culimada ayaa soo gudbiyay warbixin la xiriirta sida uu go'an tahay inay gargaar bini'aadanimo ay gaarsiiyaan dadka abaartu ay saameynta ku yeelatay sanadkan madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa dhageystay warbixinooyin la xiriira abaaraha iyo ganacsatada halka ay wax u marayaan kulanka markuu soo ilaaday waxa warbaahinta la hadlay Sheekh Abdulbaari oo kamid ah culimada magaalada Baydhabo asigoona faahfaahin ka bixiyay kulanka madaxweynaha Koonfur Galbeed ay maanta la qaateen geeka oo maalin sabti bilana roogto 10 iyo 2 oo kala roogto ma habooqanay xarunta madaxtooyada Koonfur Galbeed mayna la kulugnahay qaabilay madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Laftagareen dadka kulumina ma haynay guddi ganacsi iyo culimo asla jaraan mayna ka dareernay dhibaatada dalka ka darasti ama dhibaatada oo hada eed lamba inay ka qarsanayna yaa ka gurmini markii hore oo asix xaqaagni in uu gurmino dareensiino bulshooyinta hada dawladdeena saas oo kale inay la dareent yaa booqni
runtii madaxweynaha sifaylaha nin dhawaayey eedna arrintii nin la qaadadii ununa ma eray guddo horaada jari guddugii dhowna isagaa siinka hiraana dadkii si alasilanka gargaaro koro halanka gargaaro si alasilanka gurmudo koro halan gurmudoy marka una arrintaas ka amba qaadana maylana Soomaali meel buroogta geek khaasa dadkii ka hakijeedii mandiqadan koonfur galbeed araw ma inka baaqana dal idibid meel buroogan ingeeka gargaar aad iyo aad ballaaran la fadiyo dadkii biyo wala baahan oo la dhamaado hayaan baahada la dhamaado hayaan daawada iyo aan baahanyiin karka aan baahanyiin nooc kasta dhibaato ah dadkii saameeyay xoolaha ka dhamaadeen beeroogi inta badan abaarsadeen marka xoolaha naftooda wali roog wal aamayaan ma leeyahay dhibaatooyin jirta dadkii ha barakaceen lamba meelin nolol ku weydii karo hanbahi meel faday marka gurmud degdeg ah dhiig joojin ah ummadaan Soomaali ama koonfur galbeed meel al meel rogan dad dibad in la gurmudo oo arrintaas ka faa'iideysado oo ilaahay an ka toobashana wali dhibaato ah oo jeysani ilaahay naxariisiis oo ka rajayana sallallahu alayhi wasallam hal tunsaruuna wa turzaquuna illa bi du'afaikum hal warsin gargaare oo warsin arzaaga illa dadku du'afada ah wali isan ka gargaarta ma ahayn inta sallallahu yansurkum marka may fadana in dadkaas oo gurmuna gargaarna baahada meel al meel jart oo Soomaali dhaxdiye ah in gurmudkaasi gargaarkaas deersan oo diyaar leena dawladina insha Allah diyaar leeta shacab weyn kan kullu ma ka baaqana in arrintaas la gurmuda magal balaan ganacsi indar garata kullu in arrintaas ka qayb qaado dal idibid intaas aan ka baaqana wabillahi tawfiq deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ka mid ah sanadkan deegaanadu ay abaarta saameynta ku yeelatay waxaana weli socda gurmad ku aadan sidii dadkaasi gargaar bini'aadanimo loo gaarsin lahaa degmooyinka abaaraha saameynta ku yeelatay ayaa ka mid ah degmada Xudur Weejida Eelberde oo ka wada tirsan gobolka Bakool Diinsoor Qasax Dheere iyo Bardale oo ayaguna ka tirsanaa gobolka Baay Cabdirashiid Rashka raadiyaha TV-ga Shabeelle magaalada Baydhabo kulankan oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxa u dhaxeeyay madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen culimada magaalada Baydhabo ganacsatada magaalada iyagoona ka wada hadlay arrimaha la xiriira gargaarka bini'aadanimo ee deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ganacsatada iyo culimada ayaa soo gudbiyay warbixin la xiriirta siday ugu go'an tahay inay gargaar bini'aadanimo ay gaarsiiyaan dadka abaartu ay saameynta ku yeelatay sanadkan madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa dhageystay warbixinooyin la xiriira abaaraha iyo ganacsatada halka ay wax u marayaan kulanka markuu soo ilaaday waxa warbaahinta la hadlay Sheekh Cabdulbaari oo ka mid ah culimada magaalada Baydhabo asigoona faahfaahin ka bixiyay kulanka madaxweynaha koonfur galbeed ay maanta la qaateen geeka oo maalin sabti bilana roogta 10 iyo 2 oo kala roogta ma habooqanay xarunta madaxtooyada koonfur galbeed mayna la kulugnahay qaabilay madaxweynaha koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Laftagareen dadka kulumina ma haynay guddi ganacsi iyo culimo asla jaraan mayna ka dareernay dhibaatada dalka ka darasti ama dhibaatada oo hada eed iyo lamba inay ka qarsanayna yaa ka gurmini markii hore oo asxaagaagni in uu gurmino dareensiino bulshadeenta hada dawladina saas oo kale inay la dareent yaa booqni runtii madaxweynaha sifaylaha nin dhawaayey eedna arrintii la qaadadii ununa ma eray guddo horaada jari guddugii dhowna isagaa siinka hiraana dadkii si alasilanka gargaaro koro halanka gargaaro si alasilanka gurmudo koro halan gurmudoy marka una arrintaas ka amba qaadana maylana Soomaali meel buroogta geek khaasa dadkii ka hakijeedii mandiqadan koonfur galbeed araw ma inka baaqana dal idibid meel rogan ingeeka gargaar aad iyo aad ballaaran la fadiyo dadkii biyo wala baahan oo la dhamaado hayaan baahada la dhamaado hayaan daawada iyo aan baahanyiin karka aan baahanyiin nooc kasta dhibaato ah dadkii saameeyay xoolaha ka dhamaadeen beeroogi inta badan abaarsadeen marka xoolaha naftooda wali roog wal aamayaan ma leeyahay dhibaatooyin jirta dadkii ha barakaceen lamba meelin nolol ku weydii karo hanbahi